kulan waxaan daawada meel walba aad joogto is walbood muuqaalkan u daawanaysaba waxaad kusoo dhawaataa janaalka le waayo films oo hadaan oo kale kuusoo gudbiya muuqaaladii ugu dambeeyay ee la xiriira arrimaha Bollywoodka, Hollywoodka iyo Tollywoodkaba. haddaba muuqaalkan maanta waxaan kusoo qaadanaynaa 10 atirishe ugu mushaarka badan adduunka sanadan 2020 markaan ka hadlayno dadka caanka ah ee durbaba waxaa kugu soo dhacaya atirishooyinka Hollywoodka iyo kuwa Bollywoodkaba. dabcan waa kuwa ugu caansan adduunka markaana waa kuwa ugu mushaarka badan ee dunida. filimada ay ka soo muuqdaan ama goobaha kale ay tagaan ayaa waxa ay ku qaataan mushaar aan caadi ahayn waana mid ay darajadaasi gaareen. marka la fiiriyo liiskan waxaa ugu mushaar badan atirishada ka soo muuqata filimka Avengers ee Scarlett Johansson waxayna sanadkii gacanta ku dhigtay lacag dhan $40 milyan oo dollarka Mareykanka ah. haddaba aan isla eegno liiskan ay sida loo kala horeeyo. liiska qofka aad ku jirto waa Scarlett Johansson. quraxleedan waxay xirfadeeda jiliinka soo gashay iyadoo 9 jir ah waxayna doorkeeda Black Widow ee filimka Avengers waxay ku qaadatay $40.5 milyan oo dollarka Mareykanka. sida guudna sida ay shaacisay Forbesna waxay haystaa lacag dhan $140 milyan oo dollarka Mareykanka ah. qofta labaad ee liis ku jirta waa Angelina Jolie. xadigtan lacagta guud ee haysato waa $160 milyan oo dollarka Mareykanka ah waana mid marka laga soo tago filim jelista ay ka shaqeyso hay'adaha bini'aadanimada. waxay filimkeeda Maleficent ee ku qaadatay $26 milyan oo dollarka Mareykanka ah waana qof labaad ee liiskan ku jirta. qofka saddexaad liiskan waa Jennifer Aniston. waa gabar qurux u saaxiib ah waxayna caan ku noqotay doorkeeda filimka taxanaha ah ee Friends waxayna ku qaadatay $19.5 milyan oo dollarka Mareykanka waana qof ku jirta liiska saddexaad. qofka shanaad waa Jennifer Lawrence. waa jilaa da'yar oo qurux u saaxiib ah taas oo caan ku noqotay bandhigeeda filimada kale ah X-Men iyo Hunger Games waxayna mushaar ahaan u qaadataa $18 milyan. sida guudna waxay faraq ku haysataa $130 milyan oo dollarka Mareykanka. qofka shanaad liiskan ku jirta waa Reese Witherspoon. atirishadan filimkeeda Legally Blonde ayay liiska ku soo gashay qaybta shanaad waxayna mushaar ahaan u qaadataa lacag dhan $16 milyan. sida guudna waxay haysataa $160 milyan oo dollarka Mareykanka. qofka lixaad liiskan waa Mila Kunis. waa atirishada u saaxiib ah kana soo muuqata taxanaha Bad Moms waxayna mushaar ahaan u heshaa lacag dhan $16 milyan. sida guudna waxay haysataa $60 milyan oo dollarka Mareykanka. liiska toddobaad waxaa ku jirta Julia Roberts. haweeneydan quraxleyda ah qosolkeedana lagu qiimeeyo milyanaad ayaa liiskan kaalinta toddobaad kaga jirta waxayna mushaar ahaan u qaadataa $13 milyan waxayna haystaa lacag dhan $200 milyan. qofka sideed liiskan ku jirta waa Kate Blanchett. jilaagan ku guuleystay abaalmarinta Oscar-ka sida kalena u dhaqaaqda xuquuqda dumarka ayaa mushaar ahaan waxay u qaadatay lacag dhan $12.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah. qofka sagaalaad liiskan ku jirta waa Melissa McCarthy. atirishadan ka soo muuqata filimada kale ah sida The Kitchen iyo Super Intelligence waxay mushaar ahaan u qaadataa lacag dhan $12 milyan waxayna lacag ahaan haysataa $20 milyan. qofka tobanaad ee ugu dambeeya liiskan ku jirta waa Gal Gadot. atirishadan ayaa ka soo muuqata filimka Fast and Furious ayaa mushaar ahaan waxay u qaadataa $10 milyan si la mid ah waxay haysataa $10 milyan lacagta guud ee farqa ku haysato. inta ayaan ku soo xirinaa muuqaalkan aan kaga hadlaynaa atirishooyinka Hollywoodka ee ugu mushaarka badan sanadan 2020. haddaad ka heshaan la wadaag asxaabtaada haddii markaad koowaadna ay tahay janaalka aad ku cusubtaana subscribe inoo saar.